يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaantiin daawadayaal waxaad kusoo dhawaateen casharkeeni afraad ee barnaamijka kubaro kombiyuutarka af Soomaali. casharka aynu maanta qaadan doonaa waxa uu noqonayaa habka loo isticmaalo barnaamijka loo yaqaano Word. barnaamijkaas oo ah barnaamij aad u ballaaran oo lagu diyaariyo dokumentiyada. barnaamijkan ayaa aynu soo kicisanayna marka ugu horeysa oo aynu isticmaali doonaa haddii aan la yiraahdo inagoo casharaan dhowr ah ka qaadan doona. barnaamijku sidaa marka uu kugu soo kaco magaciisa qorto aad kala galayso qaabkan ayaa u ekaanaya. ugu horeyntii waxaa loo yaqaanaa qaybahan sare menu tabs ama file, home tab, insert tab, design, saas ayaa ugu wadaysaa. halkan dhexda waxaa loo yaqaanaa ribbons, waxaana ku jira tab waliba wixii uu gaarka u lahaa, taasi oo u qaybsan hab group ah. groupka paragraph, styles iyo editing. hababkaas ayaa ay u qaabaysan yihiin. marka ugu horeysa in barnaamijka bilaabina waxaanu ka bilaabinaa habkii ama noocee ayaad usoo kicin kartaa waraaqad cusub. qaabka ugu horeeya ayaad waraaqad cusub kusoo kicin kartaa waxaa noqonayaa 3 hab. kow waa inuu marka hore halkan aad soo furtaa, deetana aad tigta saartaa new halkay ku qoran tahay. haddii aanay new tigta ku saarnayn, tigta saaro, kabacdina waxaad doorataa calaamadda new-da. waraaqad cusub ayaa ku samaysmaysa markaa. waraaqada cusub marka ay ku samaysanto, hab labaad ayaad samayn kartaa. habka labaad wuxuu noqonayaa inaad isku taabato keyboardkaaga Ctrl iyo N, labada inaad isku qabato, kabacdi waraaqad cusub ayaa iyaduna ku samaysmaysaa. habka saddexaad wuxuu noqonayaa inaad tagto file, kabacdi inaad doorato new. waayahay qaabkaasi ayay kugu samaysmaysaa waraaqada cusub. marka ay ku samaysanto waxaad gelin kartaa text ama qoraal, waxaana dooranaysaa meesha aad ku qoraysid click, kabacdina waxaad qortaa qoraalka aad u baahan tahay. qoraalka deetana highlight garayso, kabacdi waxaad samaysaa full farta khadka ku badi, kabacdina waxaad doorataa nooca farta aad u baahan tahay. waxaad weyneyn kartaa size-ka adigoo halkaa la dhacaya ama masaalka soo furanaya, deetana size-ka halkaa kasii dooranaya. sidoo kale waxaad bedeli kartaa midabka fartaada adigoo isticmaalaya kii aad u baahan tahay hadba. waxaa kaloo aad samayn kartaa inaad underline ama lid hoosta ka mariso oo aad xagga taabato. markaanu eegno qoraalkeenaas, waxaynu samayn karnaa inuu dhexda dhigano ama dhinaca kale hordurkano inagoo isku qabanna Ctrl E. kadib haddii aynu rabno inaynu ka qaadno khadkan badan ama bold, waxaanu taabanaynaa keyboardka Ctrl E B xarafka loo yaqaano. khadkii ku badnaa ayaa ka qaadmaya. sidoo kale haddii aynu rabno inaynu saarno ama ka dhigno farteena jirta, Ctrl iyo I taaban karnaa, waa ay jiibsanaysaa. qalooc ayaa ku jira soo aragtaanba. tusaalahaan haddii imika farta bedelno, qaloocaas caadi ayuu noogu muuqanayaa. haddii aynu israahna ka qaadna, Ctrl iyo I ayaa taabanaysaa, ama halkan home-ka kaalay, kabacdi font imo, kadibna I-da kili garee, si toos ay noqonaysaa. underline halkaa ay ka tahay waxaad samayn kartaa Ctrl iyo underline-kaas ayaa meesha ka baxaya. farta idna waad waaweyn kartaa, halkaana waad ka yareyn kartaa, labada hab halkii aad doonaysid. halkana waxay noqonaysaa meeshii aad ka bedelisay midabka fartaada. habka marka aynu samayno waxay noogu xigaysaa sidee ayaa ay suurtagal ugu tahay qofku in uu save garaysto qoraalkii uu sameeyay. 3 hab ayaa uu qofku samayn karaa. waxaa marka ugu horeysa uu tagayaa ishan, marka uu soo furto halkaas save ayaa uu tigta saaranayaa,
tigta marka uu saarto kadib waxa uu dooranayaa calaamadda. marka uu calaamadda soo doorto waxa uu soo baxaysa halkan, kabacdina magaca uu rabo ayaa uu bixisanayaa. waraaqada qofka marka uu save gareysto